Sahra Cali Dheere Sahra Khaatumo ayaa maanta ku dhawaaqday inay tahay musharax xilka madaxweyne ee maamulka Khaatumo kadib markii uu meesha ka baxay maamulkii Cali Khaliif ee fashilmay. waxaan ku dhawaaqay musharax madaxweyne gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaana igu kalifay raggii aanu dooranay ama Cali Khaliif ahaadeen ama kuwii ka horeeyay ahaadeen oo mid waliba wixii aanu u idmanay iyo masiirkii dadka iyo dalka ninna Puntland la galeen kuwana Somaliland la galeen marka masiirka iyaga anaga u madax banaan waxaana rabaa inaanu nin dambe aaminin haddaanu nahay gabdhaha guuta koowaad ee gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ku dhaqan inaanu anagu ka tashano dadka dalka iyo danta haddaanu gabdhaha nahay sidaas ay igu kaliftay inaan soo sharaxo oo anigoo gabadha oo magacayga la Sahra Khaatumo taasa igu kaliftay boontiga u weynay igu kalifay oo ka seexan waayay waa inaanu nin dambe oo dhulbahanta masiirka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn dadka ku dhaqan inaanu nin dambe u daba fariisan ee aanu gabdhaha iyagu aanu wixii ku nagaga haboon iyo waajibka iyaga iyo aanu anagu u madax banaanaano saas ay igu kalifay musharaxnimada intaan wadankii tago ayaan qaadanaya qori qarqarka saaraya gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn mid walba waan tagaya dadka iyo dalkaba waxaan u qabanaya feerasti dadku waa inay helaan maamul ay horta leeyihiin oo madax banaan iyo dhulkoodii oo xora mar haddii aan helin xorayn de waxba xagaan maamulaya horta meelaha la haysto ayaan ugu horeynaya ciidamaan dhisaya aniga guuta koowaad bay ugu filan ninba ma rabo inaan wax u dirsado guuta koowaad baan rabaa aan hawlgeliyo oo aan aniguna ka noqdo hormood madaxweyne waanu tuulo walba aanu xoreysano xitaa nin ciidamaan qoranaya ciidamada nin qura ku dari maayo Maxamed waxaan dumar ahayn anigu waxba u dirsan maayo guuta koowaad sababtoo ah tala dilaya weeyada la dhacaya weeyada lacagta laga qaadaya weeyada dahabka bixinaysa weeyada dhibaataysan weeyada wax taraysa weeyada laascaanood baan tagay waraysi baan ka soo qaaday Maxamed waan ku soo diray website-da meel walba waa ku jira gabdhaha dhibaatada haysata kuwa mandheere inta la geeyay ku dhalaya kuwa laascaanood qoryaha dabadooda laga dhacayo kuwa lagu dilayo kuwa lagu kufsanayo baahida ugu weyn waxay haysataa waa hooyada iyo caruurta nimankii la doortay hooyada iyo caruurtaba kamay fekerin may waraysan umay tagin madaxweyne wuxuu madaxweyne ku yahay waa shacab mar haddaanad shacabkaagii hoos ula fadhiisan oo aanad waraysan oo aanad anigu bishii 6aad baan tagay kowdeedii bishii 8deedii sanadkii horaan ka imi saan u ooyay baan kaga imi sababtoo geed iyo gelgelinba waan fadhiistay waan waraystay gabdhihii dhibaatada ay qabaan iyagoo meel walba taagan calankii buluuga sito lagu dilayo iyagoo la leeyahay ma hadli kartaa iyagoo la cuburinayo waxa loo samaystay horta marka u horeysay Khaatumo waa xoreyntiina ma ay waxay ka qabteen ma jirto anigu feeras xoreyn weeye ahmineedeydu markaan dalka iyo dadka xoreeyo baan u soo wax qabadka kale aan u dhaqaaqaya feeras waxa weeye inaan cusbitaal u dhiso inaan iskuul u dhiso inaan wax walba waxa dadku gobolada ku xeeran ama Puntland ha noqoto ama Somaliland ha noqoto wixii ay u baahan yihiin ba dadka igu baahan oo iyagoo wayba dadkaygu ka taariikh weyn yihiin oo ka magac weyn yihiin oo ka sharaf badan yihiin oo ka cisbadan yihiin inay ka maanta ka hooseeyaan oo lagu gargortamo oo la yiraahdo Cabdiwaliina yado 5 gobol iyo degmaan leeyahay qolada galbeedka degan yiraahdaan dhulka Somaliland baa la yiraahdaa Somaliland British Somaliland gaal baa bixiyay gaalkii la anaa ka saaro madaxa xabad kaga dhufto toogtay gaal baa wadankayga ka saaray Soomaali kalena u daba fadhiisan maayo waa xoreyn iyo midaynta gobolada Sahra Khaatumo ayaan weydiinay wax qabadkeedii hore xilligii ay la shaqeyn jirtay maamulkii Khaatumo horta qorax soo baxday sacab laguma qabin karo ciyaalka
iska daa dadka waaweyn caruuraha gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn u dhashay Saare Khaatumo way yaqaanaan waxaan qabtay inaad taariikhda qoraysa website walba waa ku jira meel walba waan ku jira 7 casho 7 days ku ka kooban yahay waxaan u taagnaa wax qabad Khaatumo iyo sidaan u seel garayn lahaa Khaatumo oo aan dadka iyo dalkaba uga dhaadhicin lahaa wax qabadkayga ninkii rabaa YouTube-yadu geliya wax qarsoon maaha haddana waan u taagnahay cid u daba fadhiisan maayo waxaan ku soo dhintayna nin dambe u daba fadhiisan maayo dadkayga iyo dalkayga horena waxbaan ugu qabanaya haddana waxbaan u qabanayaa Saare Khaatumo ayaa ka hadashay waxyaabaha ay isleedahay deegaanka way ka bedeli kartaa waxay u suura galaysaa ragaygu daacad baan ka ahayn jaranjaray ku fuulayeen nin waliba dan u gaara u jeebka ku sitay buu watay laakiin aniga wax ii gaari ma jiro waxa ii gaara oo ii dana oo aan ku seexda aan ku soo toosaa gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn calanka buluuga ka babarayaan ku garaadsaday oo weligood aan la xukumin noloshooda waxay xukumaan ma aan la xukumin ingiriis inda buluuga leh wadanka ka saareen oo banaan iska dhigeen iyaga ay saysto dhexdooda ay ragayagu iska haystaan cidi uma iman kartin cadayna lagama jabsan karo waxa aniga ii sahlaya waxa weeye daacadnimada aan ku shaqeynayo iyo rabitaanka aan dadkaygii rabo iyo dalkaygii wixii aan ku garaadsado indhaa ku kala qaaday baan u baahnahay taasa Maxamed ii sahlaysa ninkuna Maxamed 9 bilood buu ku dhashay ana 9 baan ku dhashay markaas wax noo dhaxeeya ma jiro faraqa noo dhaxeeya waxa weeye oo waliba aan anigu kagaba sii wanaagsanaanaya waa daacadnimo gabdhuhu waa daacad lacagta laga qaadaa ta wax dhista ta wax dhasha ninkuna waxbuu dumiyaa waxba ma dhiso waa la ogaaday Saare Khaatumo ayaa u baaqday qurba joogta inay kala shaqeeyaan sidii ay u hogaamin lahayd maamulka Khaatumo baaqayaan qurba joogta iyo qulqul joogtaba inay marka u horeysa feerasti midnimada maamulka Khaatumo State of Somalia ay ka taliyaan oo meel ay joogaanba ay ku midoobaan maamulka aynu samaysanay hadii uu tagay cali waynu kala haraynaa maamulkeena waynu dhisanaynaa ama aniga ama mid ila midiba ha ku guuleystay wixii ku guuleysta ayaynu hadaanan xitaa aniga laygaga guuleysto waxaan la shaqeynayaa wixii ku soo baxa waa koow waa mid labaad waxa weeye Maxamed waxaan kaloo ku guubaabinayaa oo aan ku boorinayaa inaanay qalbigu jabin inaanay waxba noqon Soomaalidu waxay ku mahmaadaan Maxamed caanadaatay dabadood la qabay maamulkeeni iyo dadnimadeeni iyo jiritaankeenniba 15 nin ee galay Hargeysa waa kuwii hore bay la mid yihiin waanu taaganahay waynu jiraa waynu jiraynaa waynu jiri doonaa waxaan kaloo aan umada ugu baaqayaa gobolada degta inay doortaan oo ay codkooda isiiyaan hadii rag ila dartamo iyo hadii dumar ila tartamo diyaar baan u ahay gabdhaha ila midka ahi inay saa isu soo taagaan mid madaxweyne isu soo taagtay iyo mid ku xigeen ku soo taagtaba in gabdhuhu 9 baad ku dhalateen ay idin istaagtaan horeba inaga u shaqeyn jiray lacagteena iyo nafteena iyo maalkeena iyo juhdigeedaynu gelin jiray haddana ha gaabinino gabdhuhu hay soranina qalbigiiba jabay cali baa tagay 19 cali baa inoo jooga oo Saare Khaatumo ugu horeysay Saare Khaatumo toorta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh